magacaaga iyo sida ku dhacan basharaxaad naga sii iyo maqdad jirta magacayga horta waa Faadimo Cabdulqaadir Xasan magacayga waa Faadimo Cabdulqaadir Xasan ahaanteedana waa 19 jir sida horta waxa u dhaceen waxa dhacday galbaha kamid ah ninka lagu magacaabo Jibriil Cabdi isoo telefoon kareeyay in badan waxa maanta isoo telefoon kareeyay Jibriil Cabdi wiilka lagu magacaabo in badan nationkaygu asiga aqoon jiray laakiin muusan aqoonin hormuudkayga galbaha kamid ah ayo nationkayga anoo xaafadeena soo wacay xaafada aanan joogin ka maqnaa xaafad kale Balaxia joogay hormuudkayga goor walaashay soo siisay markay soo siisay way soo wacay lambarka Afrika ayuu soo wacay labada lambarada hormuudkooda maan wada aqoonin markuu soo wacayaan ka qab telefoonkiisa waa markaan dhahay isu ka sheegay markaas aan dhahay in maxaad rabtaa wuxuu igu jawaabay in barnaamij alaab yar aad meel iga soo qaadaysaa wuxuu dhahay gaariyan ku soo diraya soo raac gaariga salaada sii soo qaad markaas ayaan ugu jawaabay maxay tahay alaabta ana ku sheegi doono gaariyan ku soo dirayo ku adkaysto markaas mar kale aan ku celiyaan dhahay gabdho kale aad garanaysid baad u dirsatid alaabta wuxuu dhahay hadda gabar kale tad igu dhow alaabta sii soo qaadi karto adiga ahayn ma jirto kadib maxaan dhahay waan ka ogolaaday hayaan dhahay gaariga ayuu ii soo diray waan soo raacay gaarigii sidoo ii soo waday wuxuu keenay Exfiore anigoon ogeyn halka laga wado iyo alaabtu waxa ay tahay Exfiore markii uu keenay waxaan soo galnay guri ninkii darawalka ahaa wuxuu ii sheegay gurigaas soo jeedo albaabkiisa uu furan yahay ee gal ayuu ugu dhahay kadib waan galay gurigii markaan galay Jibriil iyo Afrika meesha wada fadhiyaan arkay Jibriil albaabka agtiisa taagnaa Afrika meesha fadhiyo ku qaylaayay bas markaan gudii u galay Jibriil isla markii albaabkii ayuu sakatooro ku dhigtay dabadeed Afrika meesha bistoolada iyaga soo taagay markaas aan dhahay Cabdil Casiis ma la isku ciyaaraya hadda maxay tahay bistoolada markaas uu igu jawaabay ciyaar ma ahane waa dhab markaas aan dhahay maxaan iga haleeyaan dhahay oo bistoolada maanta igu qabateen markaas ay igu jawaabeen wax walba maanta jaanis aan ku heesanaa wax walbana waan ka samaysan karnaa inaan adigu waxa tahay qof kibir badan oo isla weyn markaas aan ugu jawaabay aniga waxa meeyhi xilli maqrib ayay ahayd waxaan ka codsaday inaan salaada maqribka aan tukado way ii ogolaadeen horta waan tukaday markaan salaadii tukaday ayay qol fadhi ah meesha joodar soo fidsadeen dabadeedna alaabtii ay ku qaylayeen meesha geysteen kadib Jibriil Cabdi sidoo sheegay wuxuu rabay inuu shaqo aado habeenka shaqo qornaasan filaayo soo asiga afkiis ka dhawaajiye dabadeed markaan meeshii aan ku tukaday wuxuu dhahay soo bax halkaas tag markaasaan dhahay mayaan dhahay aniga markaad idishaan halkaas idgeysanaysaan ilaa wax walba horta way dhacaan markaan ku adkaystay in badan ay darbaxshay ugu dhigteen markay ugu dhigteen darbaxsha madaxii idil ay wareeray way qabteen meesha joodariga lagu tuuray Afrika meeshuu fadhiyay bistoolada madaxayga saaray Jibriilkina sidoo doono ay geeshtay uu baxay dabadeedna markuu baxay Afrika meesha ku soo haray anigoo yaaban wax sameey aan garan la sharafteedina uu ku tuntay hadana waxa la gaaray xilligii cishii waxaan ka codsaday inaan cisho soo tukado waan soo qabastay cishaan tukaday dawlad wuxuu ii keenay Afrika casho markaasaan dhahay aniga casho ma cuni karo waxaan u baahanahay inaan xaafadeyda aado markaasoo dhahay xaafadaada hadda ma aadaysid waad aaday laakiin hadda ma aadaysid lagu dhahay kadib waxaan kala ka codsaday xaafad kale agtiisa u dhow inaan aado wax yar ka soo qabsado markaasoo igu dhahay si aan ugu baxsado ayaan u dalbaday in xaafadaas kale aan aado markaasoo igu dhahay maya aniga igama aqli badnidooda inaad iga baxsataa doonaysaa adigu kadib waa iska dhaafay meeshaan iska fadhiyay si u qaylay asiga maray 6 saac soo dhaweed ayuu asiga qaylaadiisii dhameystay kadibna bistoolada asigana sidoo kale ugu qabtay sidoo doonan iga yeeshtay iyadoo saas ay tahay adana Jibriil mar kale dib u soo laabtay xilli 7 saac camal ay ahayd aniga marxalad ku sugan marxalad aad iyo aad u adag ay tahay aan saan isku dhaqaajixta aan garan kareenin dabadeed Jibriilka hadana mar kale soo laabtay sidoo kale subaxdii waxaan soo baxay anigoo aan socon karin dhibaatada hasan Ilaahay ogaa markaan soo baxay ayaan waxaan imaaday xaafadeedii Balaxia tagay
markaan tagay alaabta soo qaaday meesha ka shaqeynaysa alaab horta weli maanan u soo qaadan oo alaabtii meesha laga soo qaaday lamaysan ii sheegin gaariga oo kaliya waan soo raacay adii idaacadda u shaqeynaysa markaas idaacadda ma ka shaqeynayn kadib bacdal soonaan idaacadda STN tagay anigu markay haddeertaan waxaan u shaqeeyay idaacadda codka haweenka ee Kasma Radio كلي أنا وحنا هاد أنا أتصل لها واحد هاي إن لمن كان دبعت ضرت إيجستي ورت ما أنت دب كل إيجستي هذا إن شرفتي دي ورت دب مصولة وانا سكو متى ذاك الحكتو إن وحنا قرب مية أهل قرب أهل أنا ما أنا بكرسني أيوة كنت بجيب واحد دعوي ما قد بشيء واحد دعوينا ما نقول إلا ملا أقول بس درت الدعوات ملهن والدك يقول لها مشغلت دبكم قاري والدكي قدان وشي ورت عدي ذكرنا ما كشي قرنا كم بحضو dhibka hadii gaar mid ka weyn inuu gaaro xitaa macquul ah dhanka waalidka una qabteen far badan la saaro ilaa hadda uma aanan sheegin anta ay hadda fariintan maadaama warbaahin warbaahinaysid maraya waalidka inay maqlaan raasas lagu saaro waa macquul way dhici kartaa taa markay Afrika taa shaqeeya hadda Afrika Radio Muqdisho shaqeeya dhanka kalena sida lagu tilmaamo aniga ma huwa inuu nin sarkaal yahay dhanka biyaska oo noo sugu dhawaaq munaadir dawladda Jibriil kunta shaqeeya Radio Muqdisho iyo cameraman oo yahay أخوان ترى أقول هذا ما فره والله هرتو إن جبريل كأني وحنا برتي كودي لولي ما انتهت وحنا كبرتي ما أنا برا لهين محمد أبو بكر ما أذا أنا ما أنتص أنا وعريدي مقدشان شقة كرادينا أنا وشقة رادي سهر مركان وعي إن ما أذا وحود هاي ويل كسم قوس ودرا الباب أساك سوق بناي هاي عنده يصدر نيشن كي يصير كهلي كده وان قيمية جبريل كي وحو إلها وهاقف نكسن نموت كي جماعة نصين إن بدنا نيشن كي يقول إسكي هستي نيشن كي يقول بيعجل مرنا جورو لاش إسيجلي وجل مرنا أنا هست نيشن كي كده بعدي ما أنت نضم بصوت كهلا إنه نيشن كي ونموت كي يقول صهيرو سيدا صاني يقول وعد جبريل نورت ما أنت صنبرت أقوان كلا تانو ليه هم عبد العزيز أفريقيا كورها ما كأقانا لكن أسيجنا أقوان هدوجوني أن أوليه هنيك صبيرتي ومجرتو مستقبلك أي قرر ماذا يقول يعني ها هذا معك أصلاً الدولة هذا أمني هذا ورت إن مشان الدولة ترتضوي نولا لطي دولة محن وجباق لها إن أي عبد العزيز أفريقيا بيني كان لهم مقعد جبريل عبدي أي واحد قبطان مرحلة دي إن قبلها كل وقتين عيان إن بدر لقي يابي إن قبل كلا تاني إنسان كل وقتين أما هرو وصل وقتين ما دام هذا المستقبل هو يا ري لبنا جوجست دول معك أصلاً إن أفريقيا كوسناس دولة waxaan ka codsanahay inay wax ka qabto Cabdi Casiis Afrika inay maxkamad soo taagto